halkan waa deegaanka Baruujeed oo hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana dhawaan deegaankan jab xooggan lagu gaarsiiyay kooxaha khawaarijta oo duulaan ku soo qaaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo horkacaya gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta halkan soo gaaray si ay dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujiyaan geesiyada qaranka ee ku sugan furintan deegaanka Baruujeed waxaana goobta ama furintan ku soo dhaweeyay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ee deegaanka difaaca uga jira horan waxa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle odayaasha dhaqanka oo iyana qayb ka ahaa taakulaynta iyo garab istaaga geesiyada qaranka ee ku sugan furinta hore ee deegaanka Baruujeed waxa ayna sheegeen in madaxda iyo shacabka maamulka Hirshabelle ay garab taagan yihiin geesiyada qaranka ee ku sugan furintan hore ee deegaanka Baruujeed waxaan rabnaa inaan kugu wareejino deeq aan wadno oo isugu jira xoolo iyo raashin iyo shidaal iyo agabyo badan oo kale insha Allah oo aan dib u fiiri doonin magaalooyinka wixii idinka jira qayb ka mid ah waxay u tahay bilaaw iyo hordhac gurmadka reer Hirshabelle gaar ahaan degmooyinka Matabaan Galijir Qodqod dadkii aan ka nimid oo bulshada ahay way idin salaamahayeen way idin soo duceynayeen wadadayna ku soo jira naf iyo maalba halkan waxa laga difaacaa qof kasta oo nabad ku jiifa oo gadaalka jira waxaan leenahay halkan waxay tahay difaac laakiin waxay ahaan doontaa xarumaha laga duulo laga xoreeyo waxa Allah waxa bari naga xiga ilaa Ceelbuur iyo meelaha ka sii dambeeya insha Allah taliya waa mahadsantihiin waxaan u duceynaynaa dadkii wax gaareen kuwii dhinta Allah u naxariisto kuwii dhaawacmana Allah u boogadhayo waxaad ogaatiin Soomaaliya idinku jiifta waxa idinku jiifaa reer Hirshabelle waxa idinku jiifaa reer Galmudug waxa idinku jiifaa gacal iyo intaad sokeeyo wadaagtaan waligiin garabkiina leeyahay hadii Ilaahay idmo diin baa la idinku xoojinayaa deeq baa la idinku xoojinayaa difaaca la idin la galayaa gadaal loo laabo maayo horan u soconnaa hadii Ilaahay idmo waxaan runtii maanta socodkanagu ahay inaan maaragtay cudud iyo ciidan iyo calaf intaba aan meeshan maaragtay deegaanka Baruujeed aan keenno oo aan ku xoojino oo aan ku taageerno ku dhiirigelino deegaanka dadka deegaanka ciidamada qaranka oo maaragtay dhammaan oo hoggaan u wadayahay taliya Cabdullaahi Cabdiraagi marka koowaad ugu hambaliyeeyo dadka deegaanka oo garabka helay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guushii maaragtay taariikhiga ahayd ay ka gaareen halkan oo ahayd dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu jabshay kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab waxay ahayd guul taariikhi ah waxay ahayd guul ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay waxay ahayd guul maaragtay qof walba meesha uu joogay uga qancay waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo guushaas dadka deegaanka waan iraado waxaad muujiseen dhabar adeeg waxaad muujiseen maaragtay dadaal waxaad u heeliseen ummadda Soomaaliyeed waxaad tusteen ummadda Soomaaliyeed in cadawgan maaragtay argagixisada ah ee aan dhigmeeratada ah ee ummadda Soomaaliyeed loo soo diray inay yihiin cadow si maaragtay gobolkooda dhacay ayaa tusteen ummadda Soomaaliyeed ashar lama ilaawana ay u dhigeen oo kulay leenahay lama iloobi doono taariikh ayay leeyahay waana la xusi doonaa insha Allah kariin waxaan leenahay marka annaga oo ka socono maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo saraakiisha iyo odayaasha intaba waxaan ka soconaa degmada Matabaan iyo gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle garab istaaga aan meeshan u nimidna waxay tahay dadka ka soo jeeda oo meeshan u barac dhigay haddii deegaan ahaan waa dadka aan wax la wadaagno ama dhalasho ahaan ama deegaan ahaan iska dhicin mudeen hal iska dhicin haddaan la iska dhicin dadku ay yaqaan wuxuu maartay male dalkeena mar joogan dad ajnabi soo wateen iyo waxa meelahaas ay dan ay leeyeen aan loqon gaashaan sare Cabdullaahi Cabdiraagi oo ah sarkaalka hogaaminaya ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda ee halkan ku sugan oo goobta hadal ka jeediyay ayaa ugu baaqay dadka kale ee Soomaaliyeed si gaar ah bulshada ku abtirsata deegaankan inay qayb ka noqdaan halganka lagu jiro kooxaha khawaarijta joognaa inaan ummadda Soomaaliyeed ku metelno difaaca jiidaan waana aan ku metelnay waxaan u maleynaa laba mar ay weerar soo qaadeen labadii marna waa ku jabeen dadkii nooga shahiidana Allah u naxariisto hadii meel dib ka dhaco oo dagaal ka dhaco dadna waa baqtinayaano xaq darri ku socdeen dadna hadda waa dadka xaq darrada difaacaya waa ahlu khayr wixii anaga naga shahiiday ahlu khayr waaye jinnadiina ku galayaan kuwii soo weerar tagay ee dalcadkaas baqtigooda laga aruuriyay hadda way jabeen way ku qasaareen haddii ay yaqaaneen meel ay weerar gaadmaha wuxuusnimaha ku qaadaana ee laga tagana ma aysan dhicin tano waa laga diiday meel laga tagaana ma jirto meel loo sii socohana ma jirto hadda gurmadka xoog gale oo soo gaarsiideen oo ciidan kale oo agab kale oo xoolaha leh oo midka military la way idinka gudoonay aad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in idinku dayato hadda tiin reer Hirshabelle gargaar kasta mid ciidan iyo mid
saadba uga mahad celinayna horena waa sii socod doona insha Allah tacaala waa ka dib tagayna qawaarishta meelaha ay duulaanka iyo xushta ka soo qaadeen waa ugu tagayna insha Allah saacadaha soo socdo Burujeed waa deegaan istiraatiiji ah oo hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxa uu wax ka yar 40 kiiloomitir u jira magaalada Ceelbuur dhawaan ayay geesiyada qaranka jab xoogan ku gaarsiiyeen kooxda qawaarishta oo halkan weerar ku soo qaaday